dadka guulaha ka gaaray dhinacyada ganacsiga, ciyaaraha siyaasadda iyo halgamada kale ee nolosha ayaynu muuqeenan xaqiiqooyinka marar badan ku soo qaadanay. Tanna waa xalqad kale oo aynu ku dul istaagayno mid ka mid ah kuwii siyaasadda ugu saameynta badnaa xilligoodii, Barack Hussein Obama, oo aynu warinayno qaar ka mid ah xogaha ku dahsoon noloshiisa khaaska ah. Waxa uu taariikhda ku galay madaxweynihii ugu horreeyay ee midowga oo hogaamiya Mareykanka. codkarnimadiisa iyo balaaqadiisa ayaana u sahashay kasbashada Ameerikaanka cad ee madowga neceb, kuwa oo 2009 u doortay madaxweynaha dalkooda. Obama waxa uu dhashay 1961 iyadoo waalidkiisu qayb ahaan muslim ahaayeen, haddana isagu waxa uu haystaa Kirishtaanatiga. Falowda haddaad bogan ku cusub tahay, muuqeenana sii faafi haddii uu ku qanciyo, kuna soo dhawow 8 xaqiiqo ee aynu Barack Obama kaaga warinayno. 1. walxihii uu jeebka ku wadan jiray ee uu aaminsanaa inay nasiibkiisa caawinayaan intii uu madaxweynaha ahaa. Tan waxaa loogu yeeray khuraafaad iyo inuu ka mid yahay shakhsiyaadka aaminsan waxyaabaha khiyaalka ah ee dadku sida mala-awaalka ah oo aaminaan inay faa'iido ka helayaan. Waaba sida ay tahay. Obama waxa uu mar soo bandhigay dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin birtan yar ee sida lacagta cointa u samaysan, waxuun kale oo tusbax u eg oo uu sheegay in Bob Francis siiyay, iyo walxo kale oo uu sheegay inay siiyeen dadkii uu wadooyinka kula kulmay intii uu ku jiray ololihiisii ugu horreeyay ee kursiga madaxweynaha. Waxaana uu sheegay waxyaabahan inuu mararka qaar ku xasuusto dadkii codka siiyay ee uu wadooyinka kula kulmay iyo sheekooyinkii ay la wadaageen, mararka qaarna uu aaminsan yahay inay nasiib wanaagiisa saacidaan. 2. gabadhii guurka ka diiday intii uusan guursan xaaskiisa hadda ee Michelle Obama. Bal qiyaas waxa aad dareemi lahayd haddaad tahay gabar Obama yaraantiisii guur ka diiday, dabadeedna goobjoog u noqotay isagoo ah shakhsiga ugu saameynta badan siyaasadda adduunka. Qisadan waxaa lagu qoray buug yare isaga laga qoray, ka oo magaciisu yahay Rising Star, waxaana uu qoraagu wariyay in Sheila Mayoshi-Jager, oo haatan ah professor wax ka dhiga Oberlin College, uu Obama guur u soo bandhigtay 1986. ha yeeshee ay ku tiri maya weli midaasi diyaar uma ihi. Hooyada Sheila lafteedu waxa ay sheegtay in Obama xilligaasi uu yaraa oo uusan ahayn mid arrimihiisa oo idil mas'uul ka noqon kara, sidaasi darteedna ay habboonayd inaan gabadheedu guurkiisa aqbalin. 3. Barack Obama waa codkar gole ka hadalkiisa ka macaashay $100,000. Obama waxa uu ka mid yahay dadka ku fiican fagaare ka hadalka ee loogu jecel yahay khudbadahooda. Intii uu madaxweynaha ahaa iyo kadibba, isaga iyo xaaskiisu waxa ay casumaado ka heleen golayaal ay khudbado saameyn yeeshay ka jeediyeen, waxaana la sheegay inay khudbadahaasi ku heleen khidmado gaaraya $400 ilaa $700,000. 4. waxa uu ku guuleystay 2 biladood oo Grammy ah. waxaynu badankeen ognahay in Obama qoray dhowr buug oo 2 ka mid ah noqdeen kuwa loo yaqaano bestsellers-ka, kuwa oo kala ah Dreams from My Father iyo Audacity of Hope. buugaagtaasi oo cod ahaan loo duubay ayuu Obama ku helay biladahaasi Grammy-da ah. 5. ciyaaryahan ku fiican kubadda kolayga ayuu yaraantiisii ahaa. kubadda kolayga ama tan basketballka loo yaqaano ayuu ku fiicnaa waayihiisii iskuulka Obama. dadka qaarkiisna waxay u arkayeen inuu xirfadaasi mustaqbal ku leeyahay. maalmihiisii aqalka cad ayuu sidoo kale ciyaartan si weyn u dhiirigeliyay oo marar badan ayuu kaamirada ka soo muuqday isagoo ciyaaraya. 6. luqadda Indoneeshiyaanka ayuu si fiican ugu hadlaa. kadib markii waalidiinta Obama isfureen 1964 isagoo 3 sano uun jir ah markaa, hooyadii waxa ay guursatay nin Indoneeshiyaan ah oo Lolo lagu magacaabo. midaasi waxa ay sababtay in hooyadii geyso dalka Indonesia si ay ula noolaato ninkeeda, waana halka Obama meesha uu ku bartay luqadda Indoneeshiyaanka. sidoo kale Isbaanishka ayuu ku hadlaa Obama. 7. waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay adduunka ee joogto uu isticmaalo aaladaha social media. Obama waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee aaladda Twitter-ka wax ku qora ama ku boosti gareeya xogaha uu rabo inuu bulshada la wadaago iyo waxyaabaha kale ee uu doonayo inuu baahiyo. ayuu barihiisa bulshada gaar ahaan Twitter-ka joogto ugu daabici jiray intii uu joogay aqalka cad. 8. hantida Obama. Barack Obama waxa uu ka mid yahay hogaamiyayaasha milyamaadka haysta ee adduunkeena, waxaana 2021 shabakadda Forbes gelisay kaalinta 48aad ee milyaneerada.
waxaana isla shabakadaasi hantidiisa ku sheegtay 70 milyan oo dollar. shirkadda Gaashaan Enterprise waxay ka caawinaysaa aqbalaadda jaamacadaha dalalka Turkiga, Lithuania, China, Malaysia iyo Ukraine iyo sidoo kale soo saaridda fiisaha caafimaad, waxbarasho iyo dalxiis ee dalalkaas. wixii macluumaad ah oo intaas dheer kala xiriir telefoon nambarada shaashada ku qoran.